markii ay dilka bilaabmeen dadku waxay isdhaafsanayeen warar kala duwan ayagoona qaar dhahayeen beertaasi waxbaa ka khaldan halka qaar kalena ay iska natireen dilkaasi walibana ayagoo u jeeda kani waxaa la helayaa meedad aad u fara badan dadkii oo idil waxaa ku abuurmay cabsi iyo argagax fara badan. assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada channelkeena Qafiifo Pro. maanta waxaan idin wadaa sheeko filaameed ka duwan sheekooyinkii hore ee caadiga ahaa, sheeko kaliya aan ahayn cabsi sidoo kalena ay tahay mid maskaxda taabanaysa sidoo kalena tani waa qiso dhab ah oo dhacday. tani waa sheeko cabsi leh qalbigana ku ruuxaysa markaana aad si weydiiso su'aal culus oo aadan u heli karin jawaab. sheekada filimkana waxay ka hadlaysaa nin aamusan oo ku dhex nool bulshada balse gudaha qalbigiisa ku qarinaya waali nacayb iyo xanaaq tiro badan oo aan xad lahayn. qisada filimka aan maanta ka doodi doono ayaa waxaa lagu magacaabaa The Bag Maniac kaasi oo soo baxay 18 Oktoobar 2024 waana filim ka hadlaya beer dadweyne oo dadku yimaadaan nasasho farxad iyo qosol balse beertaasi ay isu bedeshay goob dhimasho iyo cabsi. intaan u guda gelin sheekadeena cabsida badan waxaan idinka codsanayaa saaxiibayaal muuqaalkan like noo saartaan sidoo kale channelkeena subscribe soo dhaadaan lana wadaagtiin asxaabtiina kale mahadsanidin. ninka ugu weyn oo ka hadlaya qisada filimkan ayaa wuxuu yahay ninkani oo lagu magacaabo Francisco waa nin noloshiisa ay u muuqato inay tahay mid caadi ah, wuu shaqeeyaa wuu socdaalaa wuuna iska wareeg badan yahay sidoo kale isaga waa shakhsi aamusan dadkana dhibaato uma geysto sidoo kalena wuxuu ku nool yahay nolol kelinimo ah dadkana kuma dhex milmo keligiis ayuu meel ku nool yahay saaxiibana ma lahan. shaqadiisana waxay u dhowdahay beerta dadka ay isku yimaadaan si nasiino ugu qaataan maalin walibana beertaas waxaa yimaada caruur dad waayeel ah lamaane isjecel iyo dad meeshaas nasiino u soo raadsanaya. Francisco maalin walbana wuxuu fariistaa beerta walibana isagoo aamusan oo dadka daawanaya laakiin dhibka ugu weyn ayaa waxay tahay dadka kaliya waxay arkaan wajigiisa balse ma arkaan mana dareemayaan waxa ka socda maskaxdiisa. markaan wuxuu dib inoogu soo celinayaa waayihiisa yaraanimada yacni markuu yaraa si aan u ogaano Francisco waxa sidan ka dhigay marka hore waa inaan soo ogaanaa markuu yaraa waxa uu sameyn jiray iyo waxa ku dhacay dib inoo soo celiya aan aragna bal markuu yaraa waxa uu sameyn jiray. Francisco markuu uu yaraa ma uusan helin nolol fiican ee wuxuu ku soo barbaaray guri aan lahayn jacayl iyo daryeel. caruurnimadiisa qofna ma uusan dhegeysan isaga waxa uu rabo qofna ma uusan la hadli jirin sidoo kale qofna ma uusan u muujin jirin isaga inuu yahay qof muhiim ah. markuu ooyo lama dejin jirin sidoo kalena markuu murugaysan yahay lama weydiin jirin wax isaga haysta. taasina waxay ku dhalisay kaliya inuu fahmo hal shay taasi oo ah aniga cidna ima daneynayso cidna ima baahna dunidaanina keligay baan ku ahay. guriga Francisco ma uusan ahayn meel ay caruurta ku farxaan amaba meel ay caruurta ku dareemayaan farxad wuxuu ahaa meel ay caruurta ku bartaan cabsi iyo aamusnaan. Francisco marar badan markuu isku dayo inuu la hadlo hooyadii ama aabihii way iska aaminsan jireen oo uma ogolaan jirin inuu hadlo sidoo kalena cidiisa way iska ilaawi jireen xitaa wiligood uma aysan muujin inay isaga dhaleen mana loo ogolaan jirin inuu ka hadlo ama inuu muujiyo dareenkiisa. Francisco maadaama uu kusoo barbaaray guri noocaasi ah wuxuu ka bartay inta aamusnaado inuu dareenkiisa qariyo iyo wax walba inuu isaga keligii qabto waayo daawade adiga baad dareemi kartaa ilmo markuu keligiisa noqdo qalbigiisa qaabkuu noqonayo. ilmaha maxaa ka rabtaa dadku waaweyn xitaa uma dulqaadan karan kelinimada ka socdo. markaani Francisco waalidkii waxay go'aan ku qaateen inay isaga geeyaan waxbarashada laakiin caruurta kale Francisco way ku qosdi jireen waxay ku maadeysan jireen aamusnaantiisa. haddana sidaas ay tahay Francisco mar waliba uu iska aamusnaa ayagana aamusnaantiisa waxayba u qaateen daciifnimo oo way ku maadeysan jireen halka macallimiintiisana aysan weligood xitaa dareemin dhibaatadiisa kaliya waxay moodi jireen isaga inuu yahay qof iska caadi ah sidoo kalena waxay u arkeen isaga inuu yahay ilmaan dhibaato haysan. laakiin runta ayaa waxay ahayd cunuga ugu murugada badan ee iskuulkaasi dhigto inuu ahaa Francisco. laakiin maxaa ku dhacay miskiinka adigana waad dareemi kartaa daawada ilma aan haysan daneen iyo xanaano inuu maskaxda dhibaato ka dareemi karo. Francisco ayaa markaan wuxuu bilaabay naftiisa inuu ka aamino in uusan qiimo lahayn dadka kale ay ka fiican yihiin iyo in farxadda iyo jacaylkaba isaga aan loogu talagelin. wuxuu mar walba is yiraahdaa aniga wax fiican ma mudni dadka kale ayaa mudan nolosha wanaagsan iyo waxyaabaha fiican. in badan dareenkiisa Francisco uu qarsanayo cuqdad fara badanna qalbigiisa iyo maskaxdiisaba uu ku abuuray laakiin qalbigiisa ayaa dulqaadan waayay markaani balse Francisco ma uusan ahayn ilmo dhibaato badan ama foodo badan ee wuxuu ahaa ilmo iska aamusan oo meel iska fadhinaya maanta oo dhan. laakiin aamusnaantaasi ma aysan ahayn edeb akhlaaqi deganaan ee waxay ahayd murugo uu qarinayo. murugadaasi oo haddana la dayacay way sii korortay way sii cuslaatay waayo maskiinka isaga waa ilmo cuqdad haysee markuu weynaaday isagana wuxuu noqday qof cuqdada ku ilmo dhashay oo ku weynaatay bal haddaad baxdeen dib u soo laabta
markii uu weynaaday Francisco. Beertani waxay noqotay meel uu naftiisa ula baxsado oo uu ku dareemo ama uu ka helo deganaan. Wuxuuna iskaga fariistaa kursi welibana isagoo dadka ka daawanaya. Markaas ayaa wuxuu arkayaa lamaane isqabsanaya oo isku faraxsan, carruur baashaaleys oo faraxsan iyo waayeel oo meeshaasi fadhiyaan. Balse daawade waxaasi oo idil uu arkayo isagu waxay ku dhalinayaan xanuun. Isagoo aamusan welibana maskaxda ayuu wuxuu iska dhahayaa maxay ayagu mar walba u heleen farxad laakiin aniga aanan u helin. Taasi oo u dhiganta farxadda dadka kale isaga inay ku reebto xanuun uusan ilaabi karin. Xanuunadaas yaryar uu dareemayo marba marka kasii dambaysa waxay isku beddeshaa nacayb. Markaani waxaa bilowday inta ugu xumeyd ee filimka. Laakiin daawada ha ilaawin muuqaalka inaad like noo saarto, sidoo kale channelkeena Khafifa Bro aad subscribe soo dhacdo. Mahadsanid. Dilka ugu horeeyay ee uu sameeyo Mr. Francisco ma uusan ahayn mid uu qorsheynayay muddo dheer. Wuxuu ahaa qarax ka dhashay cuqdad muddo dheer ku urureysay qalbi xanuunsan. Maalintaasi Mr. Francisco wuxuu joogay beerta sidii caadada u ahayd. Wuxuu ku fadhiyay kursigiisii caadiga ahayd welibana isagoo aamusan halkaasina dadka ka daawanaya. Wuxuuna arkayay dad qoslaya, lamaane isjecel iyo dad u muuqda noloshooda inay ka heleen farxad oo iska faraxsan. Markaan Francisco wax waliba uu arkay wuxuu soo xasuusiyay nolosha yarantiisa ee uu soo maray. Markaas hal mar wuxuu arkayaa qof sameynaya wax isaga ka xanaajinaya. Waxaas oo ninkaas sameynayaan waxba ma aysan ahayn laakiin maska xanuunsan waxay rabtaa waxba ay la tahay waadna dareemi kartaa midaas. Francisco ayaa hal mar waxa ku soo wada kacay dhammaan wixii xanuun u hayay oo wuxuu hal mar muujiyay oo soo bandhigay murugada uu yaraantiisa soo maray. Nacaybkii uu qarinayay muddo fog dareenkii ahaa aniga mar waliba haliga hooseeyo. wax waliba meeshaas ka socdana waxay isku bedeleen hal ilbirqsi oo xanaaq ah. Francisco ma uusan fikirin sidoo kale ma uusan qorsheysan wax dil ah, balse kaliya wuxuu sameeyay wax markaasi maskaxdiisa tilmaamaysay kuna riixisay isaga inuu sameeyo. halkaasi ayuu ku sameeyay Mr. Francisco dilkiisii ugu horeeyay. Mr. Francisco markuu wax walba uu sameeyay isaga ma uusan cabsan, ma uusan qaylin, waxna ma uusan sameyn, mana uusan dhaqaaqin. Taabadilkeeda qalbigiisa waa uu degay, maskaxdiisana way aamustay. Nunkii ku jirayna muddo fog wuxuu dareemay xanuunkaas inuu yaraaday. Markaan Mr. Francisco waa markiisii ugu horeysay intuu soo noolaa oo dareemo nasiino ama deganaan. intaan filimka waxay muujinaysaa in ay tahay inta ugu khatarta badan. Francisco dilkan uu sameeyay muusan u arkay inay tahay dembi ee wuxuu arkay xal taasi oo ah meel uu xanuunkiisa ku baxsado oo uu ku dejiyo xanuunkiisa uu kuna dareemayo xasilooni, farxad iyo deganaan. Francisco markaan wuxuu yiri waxaan sameeyay wax qaldan laakiin aniga maxaan u dareemayaa deganaan. laakiin su'aashaasi Mr. Francisco ma uusan u helin wax jawaab ah laakiin maskaxdiisa kaliya waxay baratay hal jawaab oo qaldan, taasi oo ah dilka ayaa iga dejinaya xanuunka. waa xanuun ma dareemayo haddii aan wax dilo. dilkaasi koowaad wuxuu jebiyay xandaabka maskaxdiisa isagoona ka qaaday cabsi uu dareemi jiray. wuxuuna u furay albaab uusan mar kale xiri doonin Mr. Francisco. beertii marka hore ahayd meel dadku yimaadaan nasaso iyo cayaar ayaa tartiib waxay isugu bedeshay meel laga qabo cabsi. isbedelkaasina hal mar ma uusan wada imaan ee wuxuu u yimid si tartiib ah inaa qof waliba uu dareemay wax qaldan inay ka socdaan halkaasi. markii ay dilalka bilaabmeen warar kala duwan ee dadka bilaabeen inay isdhaafsadaan. qaar waxay yiraahdeen waxbaa ka khaldan beertani, halka qaarka kalena ay iska henitireen. laakiin markii la helay meydad fara badan dhiig meesha ku daadsan markaan waxaa bilaabmay cabsi iyo argagax fara badan oo dadku idil dareemeen. dhammaan dadkii beertii iman jiray waxay bilaabeen inay yaraadaan. haweenkana ma aysan keenin carruurtooda welibana ayagoo ka baqaya dilalkaas. waayeeladii halkaasi ku nasan jireen waxay bilaabeen inay joogsadaan. sidoo kale lamaanihii meeshaas iman jireen waxay bilaabeen inay ka fogaadaan xitaa agagaaraheeda. beertii loo iman jiray qosol, baashaal iyo sheeko waxay noqotay markaani goob aamusan, goob shaki badan, xitaa qofkii agagaaraheeda maraa laga shakiyo. beertii habeenkii shidnaan jirtay waxay noqotay mid gabi ahaanba habeenkii cidla ah. iftiinkii iyo nalalkii meesha ka daarmi jireen waxay u muuqdeen kuwa daciif ah. cod weliba oo meeshaasi kasoo baxayana wuxuu ekaaday mid cabsi leh. dadkana waxayba ka baqi jireen xitaa inay agagaaraheeda beertaasi ag maraan. qof welibana wuxuu bilaabay inuu isweydiiyo yaa meeshaasi jooga, yaasi ah kan xiga oo la dili doona. beertii dadka ku keeni jirtay waxay noqotay meel dadka kala fogeysa. meeshii dadka farxad ay ku dareemi jireen waxay isku bedeshay astaantii murugada, oohinta iyo cabsida. sidaasi ayay beertii waxay ku noqotay goob cabsi badan oo qof welibana ka baqo. haddaba adigana daawada ha ilaabin muuqaalka inaad like inoo saarto. beertaasi markii ay ku bateen dilalka kaliya ma aysan noqon mid dadka oo kaliya ka sheekaystaan ee waxay noqotay mid xitaa soo gasha warbaahinta, wargeysyada, raadiyaha iyo TV-yada. dhammaan waxay ka wada hadleen dilalka, waxayna sidoo kale soo muujiyeen cabsi dadka haysata ilaa arrintii ay ka dhigeen mid ilaa qaranka oo dhan laga hadlo. maadaama dilalkii oo idil ay la xiriireen beertaasi, warbaahinta dilaaga waxay siiyeen naanays cabsi leh, taasi oo ah The Bag Man.
Maniac. Magacan wuxuu dadka geliyay cabsi dheeraad ah, wuxuuna beerta ka dhigay meel qof waliba uu shaki ka qabo, sidoo kalena wuxuu dilaaga ka dhigay qof laga wada baqo. sidaas awgeed dadka mar dambe ma aysan dhihin xitaa dil baa dhacay ee waxay odhan jireen The Bag Maniac. mar kale ayuu wax sameeyay. naanaystaasi waxay ka dhigtay sheekada mid sii weynaatay, cabsi badan ku abuurtay bulshada. maalin walibana magaciisa ayaa wararka lagu celcelin jiray. markii warbaahinta ka hadashay dilalka booliiska markaani si adag ay waxay u bilaabeen baaritaan adag. arrintu kaliya ma aysan ku ekaan dil ee waxay noqotay dilal isxixiga oo dhammaantoodna la xiriira beerta. booliiskan waxay sameeyeen waxyaabo far badan walibana ayagoo tageen beerta, wareysteen dadkii meeshaas joogay oo idil, sidoo kalena waxay isku dayeen inay fahmaan wax meeshaasi ka socda, ayagoona isku dayay inay fahmaan qaabka loo dilo, goortay daliilka dhacaan iyo dilaaga la sheegayaba qofka uu yahay. laakiin isla waqtigaasiba waxaa jirtay dhibaato weyn, taasi oo ah dilaaga daliilka sameynayay ma uusan reebin xitaa caddeyn yar, isagoona u ekay qof caadi ah. sidoo kale wuxuu si degdeg ah ugu dhex milmay dadkii caadiga ahaa. adigana daawadaha ilaawen muuqaalka in like noo saarto. dad far badan oo beerta joogay ayaa la wareystay, laakiin si caadi ah qofna looguma tuhmin. qaar ka mid ah dadkii beerta ku noolaa xitaa weligooda kuma aysan fikirin qofka ayaga ka mid ah inuu noqon doono dilaaga ama qof beertaasi jooga inuu noqon doono dilaaga. booliiska mar walba ay soo laalaaban jireen ayagoona sameynaya baaritaan, laakiin weli ma aysan helin caddeyn muuqda. taasina booliiska waxay ka dhigtay mid sii dheeraata, daal far badan ayaga ku reebta. sidoo kale booliiska bulshada waxay ku sugaysa natiijo. waqtiga markaana uu sii dheeraanaya oo sii socdaa, sidoo kale daliilkan way sii badanayaan oo way sii socdaan. sidoo kale baaritaanadiina waxay noqdeen kuwa sii adkaada, laakiin dilaaga weli waa uu qarsoon yahay, cidna ma aysan ogeyn qofka uu yahay dilaaga. markaani maskaxda Francisco ayaa waxay bilowday si tartiib ah inay hoos u dhacdo. dilalka uu sameynayayna ma uusan ka helin deganaantii markii hore uu dareemayay, balse dilalkaasi oo idil waxay bilaabeen Francisco maskaxdiisa in ay sii burburiyaan. Francisco ayaa markaan wuxuu noqday qof walwal badan, sidoo kale hurdadiisina waa ay yaraatay. sidoo kale wuxuu bilaabay naftiisa inuu la hadlo, inuu ku celceliyo wixii uu soo sameeyay, sidoo kale inuu isu sheegay inuu isaga saxan yahay. qaar Francisco wuxuu dareemayay cabsi, mararka qaarna xanaaq. maskaxdiisana waxay noqotay mid aan kala saari karin sax iyo qalad. wax waliba uu sameynayana wuxuu arkayay inay yihiin wax iska caadi ah. kii isaga yaqaanayna waxay bilaabeen inay ka shakiyaan sababtoo waxa isbedel ku yimid dhaqankiisa. sidaa darteedna hoos u dhac ku yimaadey maskaxdiisa ayaa isaga waxay ka dhigtay mid feejignaan noqda, sidoo kalena qaladaad fara badan sameeya. maskaxdiisii oo sii burburaysa ayaa waxay sabab u noqotay in la qabto manaxahani. baaritaan dheer kadib booliiska waxay heleen xog isku xiraysa dilalkii dhacayay iyo Mr. Francis. qaladaadkii isaga uu sameeyay iyo shaki hore u jiray ayaa wuxuu sameeyay cadeymo. booliiska ayaa markaan daba galeen ayagoona la socday dhaqdhaqaaqiisa, balse maalmaha kamid ah waxaa la qabtay Mr. Francisco. isagana ma uusan cararin, sidoo kale ma uusan istifaacin. markii la qabanayay aad buu u aamusnaa, sidoo kale wejigiisa kama aysan muuqan wax cabsi ah, wuxuuna u ekaa qof sugaya inay arrinta dhammaanayso. qabashadiisana waxay soo afjartay cabsi muddo fara badan jirtay. waxaaba hal mar neefta kusoo wada laabatay beertii dadka imaan jiray iyo bulshada meeshaasi ku noolaa oo idil. adigana daawadaha ilaahay muuqaalka ina like inoo saarto. qabashadiisana waxay noqotay dhammaadka musiibadii ka dhici jirtay beerta nasiinada. ugu dambeyn marka la soo xiro Francisco isaga ma muujinayo wax farxad iyo murugo toona, kuliyatan uu iska aamusaya, wuxuuna u muuqdaa qof dhexdiisa mar hore ay burburtay, yacni qalbigiisa iyo maskaxdiisaba. booliiskan isla markaaba waxay xaqiijinayaan dilalkii meeshaas ka dhici jireen oo idin inuu isaga ka dambeeyey. beertii muddo far badan cabsi ka jirtay waxay bilowday si tartiib inay kusoo laabato sideedii hore. dadka ayaa mar kale si taxadar leh ugu soo laabanayay, laakiin waxa cabsida leh ayaa waxay tahay sheekada filimkani kuma dhammaanayso farxad. dadkii wadul waxay muujinayaan murugo iyo cabsi, inkastoo dilaagii la qabtay, laakiin weli waxaa taagan su'aal adag oo waaweyn. fariinta ugu weyn uguna muhiimsan uu filimka dirayo ayaa waxay tahay qof xun mar waliba ma dhasho. dadka kugu hareeraysan ama beecadaad ku nooshahay ayaa kaa dhigaya qof xun. qisada ugu weyn ee filimka ka hadlaya ama inoogu tagayo ayaa waxay tahay caruurta la dayaco in mustaqbalka ay halis noqon karaan, in xanuunada maskaxda ee la iska nitiro uu keeni karo musiibo, iyo qofka aamusan inuusan mar waliba uusan ahayn nabad. sheekada filimka The Bag Maniac waa mid ku socota bulshada, qoysaska iyo qof walba oo iska dhitiro dareenka dadka kale. haddii wiilkan uu maanta kusoo barbaari lahaa qoys wanaagsan, beed wanaagsan uu kusoo barbaari lahaa, xanuunadan kumaysan dhici lahayn, dilaagan ma noqon lahayn. taasina waa fariinta ugu dambeysa uu ka tagayo filimka. halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa sheekadii filimka The Bag Maniac. waa filim ina tusaya in dhibaatadu aysan mararka qaar ka imaan qof xun oo meel fog ka yimid, balse ay ka timaado dayac, aamusnaan iyo iska indhatiro la iska indhatirayo waxyaabahaas loo jeedo. haddii aad ka hesho sheekooyinka noocan oo kale, muuqaalka like saaro, sidoo kale channelkeena subscribe dhaw si aysan ku seegin sheekooyinka kale ee soo socda. comment inoogu reeb fikirkaaga aan filimka xiga aad rabto inaan kasoo hadalno. halkan waxaan idinkaga soo gudbin doonaa filim xiise leh, cabsi leh, sidoo kale maskaxda taabanaya. waxaan idin dhaafay caafimaad intaan kulmayno filim kale. hadba daawada ha ilaawin sheeko waliba inay sido fariin.